السلام عليكم لما أصحابتي وسلامتين مeel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada channelka Xaydartay وعاشرkii labaad oo taxana oo ku saabsan barnaamijka Sony Focus Pro casharadaas oo si free ah uga baxay channelkayga waxa idin soo jeedin doona anigoo Xaydar maanta casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay interface-ka ama wajiga hore ee aad ku arki doontid marka ugu horeysa aad furto barnaamijka Sony Focus Pro 16 haddaynu casharkeena guda galno maanta waxaan ku bari doonaa wajahada hore ee ku muuqan doonta marka ugu horeysa aad furto barnaamijka Sony Focus Pro 16 waan xasuustaa markii ugu horeysa aan furo barnaamijka Sony Focus Pro 16 aad ayuu ugu adkaa isticmaalkiisuna sidoo kale ugu adkaa laakiin si aniga ayaa ku fahansiin doona si yar oo fududna ku fahansiin doona insha Allah la socod wanaagsan marka ugu horeysa aad furto barnaamijka qaabkan ayuu kugu soo baxayaa waxa ku soo muuqan doona waxyaalaha halka kaaga muuqda haddaynu ugu horeysiino project media waa kan halka kaaga muuqda waa meesha aad ka soo gelin doonto fiidiyowyada sidoo kale codadka sawirada ama wax aad jarjaraysid marka waxa ku xiga aynu ka hadli doonaa explorerna waa maxay isagu wuxuu ku soo dhigayaa daaqadatan folderadii iyo wax kasta aad u baahneed toos ayaad waxaad u dhexgeli kartaa kombiyuutarka meesha aad rabtidna wax uga soo bixi kartaa marka uu ka sahlan yahay project media wuxuu kaaga baahan yahay inaad dhahdid import media kadib meeshii dooratid kadib waxaad rabtid inaad soo gelisid laakiin explorer toos ayaad u tagaysaa waad ku soo click ayaa leedahay toos ayuu imaanayaa haddaan soo gudbo transitions waxa weeye fiidiyowga markaad kala jarto aad rabto inay si qurux badan isu dhex galaan waxaad adeegsan doonto insha Allah si gaar ah ayaan uga hadli doonaa video effects waa maxay waa effectiyada aad wax kaga bedeli karto fiidiyowga aad marka hagaajinayso wax kasta oo ku jira halka kan isbedel ay ku sameyn doonaan haddaad isticmaasho fiidiyowga haddaynu u gudubno media generator waa maxay isna halka waxaad ka dooran kartaa oo ugu weyn waxaad ka dooran kartaa text aan dhaqaaqayn oo wax animation lahayn sidoo kale waxaad ka dooran kartaa mid animation leh ayaad isticmaalaysaa haddaynu u soo gudubno daaqada halka kaaga muuqata media-haaga markaad soo gelisid halka ayuu imaanayaa wax kasta aad soo gelisid sidoo kale halkan ayay imaanayaan oo halka ayay ka muuqanayaan haddaynu u gudubno qaybta ku xigta video preview ayaa la halka waxa kaaga muuqan doona fiidiyowga aad ku habeynayso marka barnaamijka meesha ugu horeysa haddaynu taabano halka in badan ayaad adeegsan doontaa insha Allah waa meesha aad ka saxaysid properties-ka ama setting-ka uu leeyahay fiidiyowgaagu inta pixel uu noqon doono frame rate-kiisa 60 30 hadba intuu yahay presets ayaad ka samaysan kartaa sidoo kale wax badan ayaad adeegsan doontaa insha Allah sidoo kale iyadana waa intusaya kan ku xiga haddaynu taabano waa maxay waxaad samaysay fiidiyowgii waxaad rabtaa inaad kombiyuutarka oo dhan ku balaarisid si aad u aragtid qaabkaad u habeysay muuqaalkaaga halkan ayaad taabanaysaa waxa ku soo baxaya full screen ayuu kaaga dhigayaa escape ayaa leedahay qaabka hore ayuu ku laabanaya halkan sidoo kale waxaad ka arkaysaa effectiyadii aan halka ku soo marnay video effectskii ayaad ka arki kartaa waa lagu soo gaabiyay halkan ayaad ka isticmaali kartaa sidoo kale halkan waxa weeye fiidiyowgaaga ayaad waxaad ku samaysay isbedel marka waxaad rabtaa markii hore qaabku ahaa iyo hadda siduu yahay inaad soo egto halkan ayaad ku dhufanaysaa labo ayuu u kala jarayaa screen-kii markii hore siduu ahaa iyo hadda siduu yahay ayuu kugu qaybinayaa preview-guna waa maxay qaabka uga muuqan doono meesha tan marka aad jarjaraysid fiidiyowga qaabka uga muuqan doono mid fiican mi noqon doonaa preview-giisu mid aad u heer sareeyo mi noqon doonaa hadba adigoo hasaa rabtay aad ka dhiganaysaa kan waxa weeye overlay ayaad ku samayn kartaa fiidiyowga aad marka habeynayso grade ayaad ka dhigi kartaa insha Allah waan tusayaa su'aalahan haddaan video soo geliyo project ayaan tagayaa import media ayaan leeyahay Sony Focus Pro halkan ayay wax ku jireen kan ayaan soo dooranayaa qaabka aad u soo rar lahayd media-haaga insha Allah isna casar gaar ah ayuu noqon doonaa oo si faahfaahsan ayaan uga hadli doonaa markaad ku dhufato halkan yes ayaad dhahaysaa tusaalahan ayaan ku bixinayaa insha Allah waxaan rabaa meel kasta aynu marayno inaan fahanno marka halkan aynu maraynay grade-ka hadda ku dhufat qaabka ayuu ku sameyn doonaa shadow ayuu gelin doonaa ama waxaad ka dhigaysaa overlay red ayaad ka dhigaysaa qaabkaad rabtay aad wax uga bedelaysaa markaad rabtid inaad ka qaadid halkan ayaad ku dhufanaysaa toos ayuu uga baxayaa kana waxa weeye waxaad rabtaa markaad YouTuber tahay in thumbnail aad samaysato marka fiidiyowga dhexdiisa haddaad thumbnail ka samaysanayso halkan wuxuu kaaga qaadayaa screenshot ayuu fiidiyowga kaaga qaadayaa meel ayaan kugu save gareynayaa ayuu leeyahay halkan tusaalahan save ayaa leedahay marka toos ayuu sawir uga dhigayaa fiidiyowga dhexdiisa ayuu capture ka sameynaya haddaynu u gudubno dhinaca kan halkan waa maxay recording ayaad ku sameyn kartaa cod ayaad iska duubi kartaa kana waa maxay haddaad halka double click ku dhufato
laba calaamadood ayuu saaray waad aragtaan loop ayaa la lahaa marka waxaad leedahay loopka inta ku dhex jirta ayuu u celcelinayaa bas meel kale uma dhaafayo waad aragtaan wuu soo bilaabayaa markasta kan ku xigana waa maxay play from the start bilow ayuu kasoo bilaabayaa markasta aad ku celiso xagga bilowga ayuu kasoo bilaabaya kana waa maxay waa start bilow kana waa maxay pause stop kana waa maxay go to the start kana go to the end bilowga iyo dhamaadka ay aadayaan haddaad video si heer sare uga shaqeynayso aad frames ku shaqeynayso halkan waa ku anfacaysaa frame by frame ayuu u soconayaa horey waad aragtaan halka waxaa ka muuqda 698 frame dad hore u socoto hal xabo ayuu kor u aadayaa halkan waa meeshaad ka edit kareyn lahayd waxa halka ku jira xun baa kala saaraysaa ama saas ayuu deynaysaa haddaynu u gudubno halkan projectiga wuxuu kaa tusayaa inta uu yahay videogaagu pixel 1287 pixel ayuu ku tusinayaa halka sidoo kale previewgiisu qaab ku yahay qaab fiican ma yahay 360 180 ayuu leeyahay marka previewga hadba aad u saarto aad ka dhigin kartaa full aad ka dhigin kartaa waad aragtaan si uu soo bedelay projecting intuu ahaa ayuu soo baxay hadda 1287 pixel ayuu ku soo baxay hadaynu u gudubno halka kan waa maxay timer ayaa lahaa marka aad rabto hadir tusaale ahaan video kan ayaan waxaan rabaa inaan soo dhigo videoga ayaad waxaad rabtaa inaad in kala baxdo marka labada calaamadood aragtaan oo loopka ah ayaad waxaad dhahaysaa waxaan rabaa videoga in inta la iga jiro bas tusaale ahaan labadaas kanadan intaas hore bas ayaan waxaan rabaa in laga jiro inta uu waxaad igeysaa timeline-ka waad aragtaan marka waxay ku sahlaysaa inaad siro fudud wax u jarjarto hadaynu banalkan u soo gudubno waxa lahaa master bas ayaa lahaa wuxuu ka caawin doonaa codka soo baxi doona waa yareyn kartaa ama waa doonin kartaa su'aalahan halka waxaad ka sixi kartaa properties-ka uu leeyahay codkaagu markaad saxsid okay ay leedahay waxaanu u soo gudbaynaa timeline-ka timeline-ku waa maxay waa meesha aad ku jarjarayso videoga ama sawirka waa miiska aad ku jarjar lahayd videoga ama sawirka program kasta oo video editing uu leeyahay meeshan oo kale haday noqon lahayd Premiere Pro After Effects Camtasia mid kasta oo kamid ah aad adeegsato waad ku arkaysaa insha Allah timeline tracks ayuu leeyahay waad aragtaan hadda waxa ku jira video track hadaad rabto inaad cod soo geliso tusaalahaan mid cod la ayaan raadinaynaa waxaan tegaynaa explorer oo noo fududeynayay folderka rabto aad wax kala soo bixi kartaa waxaan tegayaa halkan folderkii xadirta jeen aadaya cashirkii ugu horeeyay okay ayaan leeyahay waad aragtaan project uu soo noqoto kan ayaa lagu soo diray markaad saa u soo geliso ayaad waxaad sameynaysaa waad daaraysaa waa cashirkii ugu horeeyay aan soo daayay waad aragtaan videoga saas ayuu ku soo muuqanaya marka waxa ka soo muuqanaya laayarkan sare waa maxay waa kii videoga kana waa maxay waa kii codka labadaas wuxuu ku sameynayaa laba track ayuu ku sameynayaa mid codka iyo mid videoga track ugu horeeya hadaynu ka hadalno waxyaalo badan ayuu leeyahay waxa kamid ah mute ayaad ku sameyn kartaa waad qarin kartaa sidoo kale haddii ay ku jiraan trackyo kale oo ah video laba ayaan ka dhigayaa marka hadda maxay isdul fulay laba video waxaan rabaa kan tusaale ahaan inaan wax yar xagga geeyo aan isdhaafiyo si ay u kala duwanaadaan hadda kan noo bilowday kan acbaar ba soo socday marka kan haddaan mute sameeyo waad aragtaan kan hoose wuxuu ka bilaabanayaa meel kale sidoo kale waxaan sameyn karaa solo waa maxay track kan kaliya ayuu soo reebayaa trackyada kale oo videoga ah ayuu qoranayaa laakiin si ku audio ma taabanayo tusaalahaan track ayaan reebay wuxuu iga qariyay track kale oo igu baxay haddaan hore aado meesha waa madoodahay waayo track kan ayaa la qariyay haddaan sameeyo track kan audio-ha bas soo reeb haddaan dhaho aan solo taabto kan codka ah wuxuu tusinayaa track hoose in highlight saaran yahay haddaan ka qaado waad aragtaan highlight-ka ayaa ka baxaya waa la soo muujiyay ayuu ku leeyahay marka qaabka ayaa loo adeegsadaa track kan waa iska delete garan kartaa waxyaalaha kale oo ku jira track haddaan si eegno waa maxay halka waa levelka boqolkiiba opacity-ga ayaad ka yareyn kartaa kana weyneyn kartaa properties ayuu si leeyahay waxa ugu muhiimsan halka waa maxay waa modiskii adha ayaad ku sameyn kartaa screen overlay ban darking marka aad adeegsanayso aad rabto inaad laba sawir ama laba video isdhex geliso audio haddaan u soo gudubno waxyaalaha ugu muhiimsan oo aad ku arki doonto solo iyo mute waa soo aragnay kan waad qarinaysaa kan isaga bas ayaad ka soo reebaysaa kan waa maxay waa volume-ka waad kordhin kartaa sidoo kale low ayaad ka dhigi kartaa centerka ayuu ku fiican yahay in la geeyo kana waa maxay waa samcadaha ma lafta ayuu ka bixi doonaa mise right adiga ayaad maamuli kartaa xaggan ayuu ka baxayaa markaan xagga geeyona
dhinaca kan ayuu ka baxayaa leftiga laakiin centerka inuu ka baxo ayaa fiican. haddaan isu gudubno xagga kan video effect ayaad ku dari kartaa sawirkaaga oo aad halka kusoo aragtay, xaggana waad ka adeegsan kartaa, xaggana waad ka adeegsan kartaa. sidoo kale waxaad ku dari kartaa audio-ha waxaad ku dari kartaa video effect. waad aragtaan halkan ayaad ku dari kartaa oo haddii ay kugu jiraan. kan waxaad ku sameynaysaa, waxaad ku hagaajinaysaa kan waxa la video effect ayaa lahaa. waxaad meesha uu ka muuqanayo sawirkaagu ayaad hagaajinaysaa. sidoo kale animation ayuu leeyahay, frames ayaa la adeegsadaa. waad aragtaan haddii markaan taaftay waad aragtaan soo sawirku u dhaqdhaqaaqayo, video u dhaqdhaqaaqayo. si fiican ayaan u sharxi doonaa casharada dambe. mar raba casharka inuu dheeraado, waxyaalaha ugu muhiimsan oo ka hadalnay. halkaas haddaynu tagno recordkii, loopkii, inta u dhaxaysa loopka ku soo celceli, inta halka kaaga muuqata ayaa misna halka loogu soo celiyay. waxyaalaha ugu muhiimsan oo halka ku jira waxaa kamid ah kan hadaad rabto inaad waxyaalo badan ayaad goysay, waxaad rabtaa in kamid ah inaad selection ku sameyso. selectionkan ayaa soo qaadaysaa, group selection ayuu ku sameynaya. sidoo kale waxaad sameyn kartaa halkan haddaynu usoo gudubno waxa weeye cursor-kan aad aragtaan halka yaala, calaamadda halka taala aad aragtaan, ayaad waxaad leedahay inta ka horeysa iga tirtir, waa lagaa tirtiray. ama waxaad sameyn kartaa inta ka dambeysa iga tirtir ayaa leedahay, waa lagaa tirtiray. sidoo kale log ayaad saari kartaa haddaadan rabin inay kaa dhaqdhaqaaqaan waxyaalaha edit garaysay. sidoo kale marker ayaad ku sameysan kartaa oo commenty ayaad raacin kartaa. haddaynu kusoo noqono file iyo edit, view, insert, kuwan aragtaan waa optiono. fileka haddaad aragtid wuxuu ku siinayaa new project ayaad sameyn kartaa, open project hore u jiray ama hore u sameysay, close ayaad ku sameyn kartaa, save ayaad ku sameyn kartaa, ama render ayaad ku sameyn kartaa. sidoo kale edit ayaad sameyn kartaa, videoga ayaad ka katgareyn kartaa. sidoo kale split ayaad ku sameynaysaa. insert waa maxay? insert waxaad ka soo gelin kartaa audio track iyo video track waxaad rabtid. viewna waxaad sameyn kartaa tusaale ahaan mid kamid ah waxa aad adeegsanaysaa ayaa si khalad kaaga baxay, waxaad imaanaysaa window seen hore u naqaanay, inta tigtu saarantahay waa inta halka kaaga muuqata. tusaale ahaan haddaan tigta ka qaadno video preview waa la waayaa, halkan haddaynu timerkiina waa la waayaa. marka waxaad ka soo ceshan kartaa halkan view ayaad tegaysaa, waxaad tegaysaa window, kadibna video preview ayaa leedahay. waad aragtaan wuu soo laabtay, halkan ayuu ku jiraa, soo riixi kartaa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. waxaan u maleynayaa waxaadan hore uga aqoon Sony Vegas Pro inaad maanta baratay. waxay noo ballanaa casharka xiga insha Allah. mahadsanidin.